اوكي markii lagu qasbay inuu DNA laga qaaday muxuu ku yiri markaas markii ay ku cadaatay muxuu ku yiri waxa ma san dheen haye raan noqoxtaa in hooyadeeda waa la isla hadlay ana wax walba sameeyay waa guursanaya hadartan soo ana guur marabiya already sharaftiis macad way dhamaatay haye okay gabadh abgaalo Hollandeeraha tahay hawiyii meesha deganaa iyo abgaalkii maxay ku siiyeen cid wax ii qabatay iyo cid soo booqtaa way raatay malahan isu markal mar arrimaheena waa arrimaheena dadka aan daawano أحمد عبد الله السياد لو $1 كوسو دير أحمد عبد الله السياد تلفونكي $1 كوسو دير وايهي waxaan rabaa inta aynu ka 500 kuna gaarina dadka hala soo celsooy soo qabo Kamaal iyo shaqadii la wada soo qabo iyo Maxamed Daawud iyo waxaan rabaa numberkayga 56 eber soo qortaan sidoo kale seelaha Mahad Cabdi Xakiin waxaan rabaa 10 qof oo min $100 noogu dirta seelahaas 10 qof ku soo kaamirada storyteller noqo qaabka kulanteen qaabka mas'uuliyadda soo xarray ninka muxuu qabtaa wayna dadkeena maqlaan rabaa dhibaatada ku dhacdo noogu sheekay meesha isku barateen noogu sheekay saas ku barateen qofka iskiin baray maal oo ciid ka magaciisa looga bilow badan ogeey dhibaatada muxuu qabtaa xagu ku nool yahay yuuya qabiilkiisa nooga sheekay waa armaana oo magaciisa oo loo yaqaan waa armeena soo magaca oo sharciyadiisa wixiisa uu qorno waa Umar Maxamed Xaaji soo maxaa is baranay maalin ciid oo ciidweyneeda ciid markii laga soo baxaan is baranay maalinkaas ciid oo is baranayna telefoonada kala qoran telefoona iga haleysnaa u dhiibtay sidaasaan isku baranay kadib xiriir yeelanay soo xiriirka markaa yeelanay maxay dhawas guursaneena soo caan inaan noqtid marabtaa yes YouTube ku sameynaya iyo ogolow inaan qubsiro guursano gadaal damba aroos weyn ka dhiganeena soo sidii isku aroosnay kadibna cunugu uurkiisa yeeshtay wuu ideeriyay markaas maxay dhaa aniga marabi cunug iyo waxaas xiligan hada ka soo xaq qaban soo aan marabi yaa dhahay sida isku dagaanay walaalkiisa u taga walaalkiisna maxay dhahay walaalkayga ma ahan ninka uur ku yeelay iyo ninka qabo soo maxay dhahay waa cusba hadana Malaysia maxay dhahay booliiska ku soo sheegaya soo booliiska ma ogolo waxa ay sameysay soo ana waa cusba waxba kale ma ogeen waa iskaaga carar meesha dhan gobol iska aaday booliiskan ku sheegay maxaa laga wadaa in lagu uuriyo booliiska ogoleen وهندد شرعي ما شغل وهندد أنا حمرا كيمادي سو محي دا ودا مسلم waa meeshan qubsirada iyo waxa ka loo laag maxay iga dhigay meesha al-shabaab ka camal ma fahamtay soo aan waa iska aamin waa iska carare mana ka fiirno qofna ma ka aqoon meesha intii asigi walaalkiisa keen sanadkaas waa sanadkii marka 19kii هيا marka waa dhashay isbitaalka ku geeyay marka dhashay lacagta ka bixiyay soo wax walba hooyada iga beegrasay hooyada wax ku soo dirjirtay hooyada isbitaalka iga bixisay isbitaalka 20 bariya jiifay soo pressure ay u kacay waa la qalay soo cunugaygiina uu iga xanuunsada dhalaal galiyay wax badan ay u dhacay soo wax walba iga baxay $5,000 ee hooyadaan iga bixisay ilaa qarasiyo soo ida wax walba ismees asina waxaan ku diinayaa sababta u diiday inaad iska soo xaaqdid ma arin diina maxaa kugu kalifay arintaas ma rabin ina oo waligayga muku aamin xataa waa ka diidaa anigana داير دينيو قف إسلامي عنق هذا صح عقيدة دشيد هذا قف دليل لمتها دين إسلام كرمه أقول الماء إلا حاقه هذا قف دليل نفتك نقول وأنا أوجه لكن إذا ربع وحيالها كوكا اللي فإني ديد إني نرشكتو ما فهمت بوينتي غلطها
okay sheekada noo wad haye marka waa dhashay kadib maxaa dhaca marka kadib maxaa dhacay cunugu waa xanuunsanaa jiray ilaa 6 bilood maxaa isdhaayay qofkan sharaftaada iyo sumcadaada ka dilay wiilkaaga ilaahay cunugay inuu iga dil mar walba ku duceysan jiray soo cunugaygii wuu ii badbaaday DOA aan laga qaaday DOA-ga soo sidii in isku yeeshteen DNA-ga yaa ku qasbay DNA-ga inuu ogolaan yaa ku qasbay soo waa la caawiye UN community-ga xafiiska UN-ka dadkaas ay caawiyeen because UN-ka waxay ku qasbeen haddaa DNA-ga soo marin kaarka qaxootiga laga kansalaa lagu dhahay fiiri qaabkaas UN-ku shaqeeya waxaan anaga naqaano waxaa lagu dhahay gabar baan daahiro adeer maxamed daawud soo qabtay uu leeyahay soo fadhiya adeer maxamed daawud ay kaarka qaxootiga laga kansalaa lagu dhahay maxaa dhacay dadka maxay soo maxaa wada remove gareeya dadka لا إله إلا الله سوسي ذلك شاقع نوسع سوسي جوج لك سوعلي إلا سوسي سوعلي شاقع نوسع تسوعلي وهي قبل لي نعيسة سوسي أمرها إن أو الله اللي نعيسة marka isaga marka la dhahay waa ina DNA aqbashaa muxuu dhahay oo diiday inuu baxsado rabay kadib waa la iga caawiyay inuu bixin walaalkiisana muxuu rabay inuu dhaho anaa hoosoosa wax bloo bixina inuu ay khiyaano oo istaalada geeyo lacag siiyo ku dhaho cunugan anaga ma dhalin camal naga sikay ma la maqlaa codkaaga ana maqlib ma soo walaalkiis rabay inuu ama ani xagiya sugan fiirshay okay markii lagu qasbay inuu DNA laga qaaday muxuu ku yiri markaas markii ay ku cadaatay muxuu ku yiri waxa ma san dheen haye raan noqoxtaan in hooyadeeda waa la isla hadlay ana wax walba sameeyay waa guursanaya hadartan soo ana guur marabiya already sharaftiis macad way dhamaatay haye okay gabadh abgaalo Hollandeeraha tahay hawiyii meesha deganaa iyo abgaalkii maxay ku siiyeen cid wax ii qabatay iyo cid soo booqtaa way raatay malahan lisu markal mar arrimaheena dadka aan daawano أحمد عبد الله السياد لو $100 كوسو دري أحمد عبد الله السياد تلفون كيلو $100 كوسو دري وياي waxaan rabaa inta aynu ka 500 kuna gaarina dadka hala soo qabo Kamaal iyo shaqadii la wada soo qabo iyo Maxamed Daawud iyo waxaan rabaa numberkayga 56 ever na soo qortaan sidoo kale seelaha Mahad Cabdi Xakiin waxaan rabaa 10 qof oo min $100 noogu dirta seelahaas 10 qof